salaan kadib caawa waxaan halkan u taaganahay ololada nadaafadeed oo aan ka sameynay 3 degmo oo kala ah Yaaqshiid, Shibis iyo Kaaraan. hawsha hadda waxaan ka wadnaa oo shaqada ka socota isgoyska Sanca oo kulmiyay 3 degmo. waxaan rajaynaynaa guud ahaan magaalada Muqdisho inay noqoto meel nadiif ah. hadalkii gudoomiyaha gobolka ahaa balad nadiif iyo bulsho nabad. waxaan rajaynaynaa in goordhow uu magaalada Muqdisho ka hirgalo, magaaladuna ay noqoto magaalo qurux badan, bilicdeedana kor loo qaaday. runtii waxaan aad u boodinayaa hooyooyinka Soomaaliyeed lafdhabar ku ah degmo kasta ee magaalada Muqdisho ku taala shaqooyinka adagnahay. waxaan ugu mahadcelinayaa si guud runtii hooyooyin volunteer waxay naga mudan yihiin inaan markasta garabkooda istaagno. waana taaganahay haddii Ilaahay nafta noo dhaafana waxaan rajaynaynaa goordhow mustaqbalka dhow in waxay ku farxaan heli doonaan, sababtoo ah hooyooyin volunteer mudana ka shaqeynaya degmooyinka sida aan ka codsanay gudoomiyaha gobolka Banaadirna aan rajaynayno inuu fuliyo inay xuquuq heli doonaan haddii Ilaahay yiraahdo degmooyinka haweenka ka shaqeeya. inta ka horeysana waxaan rajaynaynaa sida shaqada u wadeen inay sii wadaan. dhammaantiin waa idin bogaadinayaa degmooyinka Galbeedka taagan sida quruxda badan leh shaqada u qabateen. waana mahadsantiin.